shirkadaha iibka dhulka iyo guryaha ee dalka Shiinaha oo lacag ahaan u qaadanaya qare ama xabxab iyo khudaar kale oo muhiim ah kuwaas oo la sheegay in ay ku bedelayaan guryo dhisan. ku soo dhawaada xubinteena maanta. Magacaygu waa Cali Ibrahim. shirkaduhu waxay xayeysiiyeen heshiisyo ay dadka ugu ogolaanayaan inay isticmaalaan wax soo saarka beeraha oo ay ku jiraan qaraha ama xabxabka iyo toonto xilliyada ay lacagaha ugu horeeya ka bixinayaan guryahooda cusub. businesska ama ganacsiga guryaha ee dalka Shiinaha ayaa hoos u dhacay 11 bilood ee aynu soo dhaafnay iyadoo isbuucan mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ay iska bixin weyday deymihii lagu lahaa. toddobaadkii hore shirkad iibisa dhulka oo ku taalla magaalada bariga ku taalla ee Wuxi ayaa sheegtay inay ogolaan doonto nooca midhaha beeraha ee lagu magacaabo peach ama peach in lagu bixiyo lacagaha hordhaca ah ee guryaha, taas oo u dhigmi karta in la dhimo ilaa 188,000 oo lacagta yaanka ah ee laga isticmaalo dalka Shiinaha oo u dhiganta 28,000 oo doolarka Mareykanka ah ama 23 pound. waxayna u qaadanaysaa qaab u dhigma lacagta ugu horeysa ee guryaha. shirkad kale oo lagu magacaabo Nanjing ayaa sheegtay inay beeraleyda ka aqbali doonto ilaa 5,000 oo kilogram oo qare ah ama xabxab ah. waxay ku qiimeysay inay tahay wax soo saar u dhigma 100,000 oo yaan, waa lacagta laga isticmaalo dalka China. qiimahaas wuxuu ka badan yahay kan uu xabxabku ama qaruhu ka gooyo suuqyada maxalliga ah. si kastaba ha ahaatee xayeysiinta oo loogu talagalay in ay sii socoto ilaa maalinta Jimcaha ah ee soo socota ayaa la hakiyay sida uu sheegay wargeyska Global Times ee ay dawladdu maamusho. bishii May ee aynu soo dhaafnay shirkadda Central China Management waxay samaysay olole 16 maalmood socday oo ay ku aqbashay in toon lagu bixin karo si u dhiganta lacagaha hordhaca ah ee laga shubo guryaha ee gobolka Qi ee China oo ah gobolka ugu weyn ee ay ka soo baxdo toonto. sida uu dhigay heshiiska hal xabo oo toon ah oo u dhiganta ku dhawaad 600 oo gram ayaa lagu qiimeeyay 5 yaan oo lacagta dalka China ah, taas oo ku dhow 3 laab qiimaha suuqa. haddaba daawade ma tahay mid ku sugan ama degan dalka China isla markaana danaynaya in uu iibsado aqal jaban? warbixintani daawade way ku anfacaysaa. intaas ayaan ku soo afmeeraynaa xubinteennii maanta. intaynu mar kale kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa nooli kulante.